إلهي بينو مهدقينا إن قسمي مناسبة دنقالقة لبي اللحدن قورده مالنتي حرنبده ودلك جمهورية الصومال لان كقاطي بقرطوية دا إنجليزكا وحينو لنا هاي ضمان شعب وينها غير صومالي لان همبليو إلى هاي سنة كاكيسة هاي نقو قارسيو نبض قب برواقو يهور مر وحانسلا هاي هذا البضن هل كان يقام فرة وحي لغو أران لها يا مسوغان لغو عبيري مالنتي حرني بده قولي فنانين تهاي هل كان كيسي باينو الشيغي وحي كلا لغو أران ايانا قولي هي تشوغي با هل كان فرديو مدحوينها هي السلام مرة هذا الكي يقدم بين ايان وحانو ملايين ايان أنا جوايا أنا شوقين كورن كيسيا كفالوت كيسة ولا يجي حاجة هدي اللي جت جوايو وعن السلاح هذا ودري كي يكوشرته سيجار أنا ترصد على حيل باتك تشونو إن أنا ملاهم كلمة إلى هذا وعد بانو حسيا وعنتي قيمة وين بيوقف فردا شعب كرير سومالي لان مالين تلحية اللي باتك تشون waxay horseed u ahayd xornimadii guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee ummadda Soomaaliyeed ee aynu calanka u qaadnay xornimadooda waxaynu xaqiijinay yool runtii muddo dheer oo 100 sano ku dhow aynu higsanaynay 1880 ilaa 1960 aynu higsanaynay waxaa u baxay oo u dhintay dad badan oo naftooda horayaala waxaa loo galay halgamo kala duwan oo ay hogaaminayeen dadkii hormuudka u ahaa ummadda Somaliland oo ay ugu mudnayd culimadeedu oo ay ka mid ahayd tii uu hogaaminayay Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdillah Xasan oo muddo 22 sanadood ah u dagaalamayay xornimo uu dalkeenu helo waxa ka mid ahayd kuwa ay hogaaminayeen hogaamiyaashii diimeeda caanka ahaa ee kale ee uu Sheekh Bashiir ka mid ahaa waxaan marnaba anigu ilaawi karin oo qiimaha la mid ah ila leh oo xornimada midhaheedii goostay Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo aniga qiimo gaar ah markasta oo aan xusuusto doodihiisii iyo maansooyinkii uu ku cabiri jiray ii sameeya dareen gaar ah waxa ka mid ahaa aqoon-yahankeenii iyo dadkii iliidka ahaa ee hogaaminaya xornimadeena oo ay ka mid ahaayeen kuwii dhaliyay oo uu hoggaan u ahaa madaxweynaheenii geeriyooday Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo ahaa hoggaankii xornimada gaarsiiyay dalka kan 1960 dhammaantood ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa inkaas oo dhan oo tacab ku lahayd in ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo innagana waxaa laynaga doonayaa inaynu ku fara adeegno oo aynaan tacab ka biin waxaa kaloo runtii aan saluugaa in badan qiimaha ama mustawaha aynu dhigno maalinta tan in badan baan saluugaa waxaan soo jeedinayaa inaynu halkan inta halka ay maanta taallo 26 Juun iyo qaabka aynu u xusno ama aynu u qiimayno ama aynu u qadarino inay intan ka roonaato ayaan soo jeedinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.